waa hagaag dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da oo washington idinka imanaysa. laanta saadaalinta hawada ee dalka ingiriiska ayaa digniino culus ka soo saartay iyada oo la sheegay inay maalmaha soo socda ay da'i doonaan roobkii caadiyan di'i jiray muddo bil ah galbeedka gobolka yorkshire oo ku yaala waqooyiga dalkaasi ayaa ciidamada qaranka loo diray si ay dadka deegaanka uga caawiyaan dhibaatooyinka fatahaada uu roobka dabeelaha wata keenay. diyaaradaha British Airways iyo EasyJet ayaa qaar ka mid ah la baajiyey. yaasiin farax jes waa wariye madax bannaan oo degan magaalada Sheffield ee dalka boqortooyada ingiriiska. xaaladda roobabkan iyo saameynta ay ku yeesheen deegaankaasi ayuu goorsii horeysay iiga warramay. cabdi xaafid aad iyo aad baad umahadsan tahay. waa run horta dee arrintani waxa weeye waxa ay salka ku haysaa isbeddelka cimilada oo aad ka warqabtaan oo caalamka oo dhan dee ka jira. markii u horreysayna ma aha roob dabaylo iyo daadad iyo daayo wataa uu ka da'o guud ahaanba waddankan ingiriiska. wiikankii hore iyadana sidan si leeg baa kaero mid la yidhaahdo dabayl iyo roob iyo wata ay ka da'een. maantana tanna waxaa loogu magac daray storm denis baa tana la yidhahdaa. marka wiikankan aad iyo aad baa looga dayrinayaa oo met officku uu runtii warning aad u fara badan maaragtay soo jeediyey. way jiraan cancellation fara badan oo xagga duulimaadyada diyaaradaha ah oo iminka EasyJet oo kale dee ilaa 350 cancellation baa jira oo gudaha iyo dibadda ilaa Yurub meel walba u kala baxaya. diyaarada la baajiyey. British Airways sidaas leegyadu inkastay sheegtay in ay sidii ay qorshu ahaa ay ku socon doonaan duulimaadyada, haddana waxay waa laga yaabaa in ay qaar badan xalimaan. waa dabaylaha dhinaca xeebaha oo kale waxaa lagu leeyahay xawliga ay ku soconayaan waa 70 miles per hour. marka waa run aad fara badan baa jira. metafisku sidoo kale waxa ay heegan geliyeen ciidamada si ay dabaylihii iyo roobkii wiigii hore dhacay oo meelihii ay ku badnaayeen si ay dadka uga moosaan ama maaragtay ay gidaara uga dhisaan ayagana heegan la geliyey. marka runtii waa khatar jirta. tareemada oo kale dad gasho iminka meelaha laga bugaraysto waxaa ku wada qoran mid walba waxaa saameyn wili yeelan doonta dabaylahan iyo roobabkan iyo feedaanaadkane. marka qof walba iska hubi intaanad soo bixi. waa tahay yaasiin, soomaalida waxaad moodaa inta badan inaanay u diyaar garoobin marka ay cimiladu sida deg dega isu bedesho, gaar ahaana roobabkan xooggani marka ay yimaadaan oo xataa kabihii dhaadheera ayaa la iibsadaa. inta badanna waxay degan yihiin deegaano saboolahoo dee iminka xaafadahan ay soomaalidu Sheffield ku badan yihiin oo kale xitaa adeegyada bulshadu sidii xaafadaha kale maaha. bal ka waran Sheffield iminka. Sheffield markii u horreysay daadad iyo roobab iswataa ay ku dhuftaan 2007 wada xasuusataa oo areada la yidhaahdo wiika oo kale meesha soomaalidu ay ka agdhowday iyo Bitmore waad garanaysaa. marka runtii golaha deegaanka magaaladan iyo dawladda guud ahaanba dee khibrad fara badan bay ka taateenoo dhulkii oo dhan waa la dhisay. dhulkii ay saamayn ku yeelatay daadadkaas oo dhan dib baa loo wada hagaajiyey. marka kolley khibrad weyn bay ka kororsadeen. waxaana runtii muhiima arrinkaad ka dhawaajisay in dadka soomaalidu ay ku baraarugaan isbeddelka cimilada oo ay la socdaan waxyaabaha dhacaya ee caalamka maaragtay isbeddelka dhacaya. waana run oo deegaanadeenu inta badan waa meelo saboolaba dadka soomaalidu ay degaan. meelahaasna dee kolleyba dadka wixii degan ayay dee wax la qabayaan, laakiin baraarug sidaas ah oo intaa dee ay warka ka maqlayaan mooyaane iyo in dabaylo iyo roobab iswata ay da'ayaan mooyaane. laakiin dadku dee waad garanaysa soomaalidu iyo wax walba waxay odhanayaan dee doonida dadku wada saaran yihin. magaalada Manchester ayaa yaasiin iyaduna ay roobabkan dabaylaha wataa ku badnaayeen. waa sidee isu socodka iminka Manchester iyo Sheffield iyo inta ku taalla gobolkan Yorkshire laysku yidhaahdo ilaa galbeedka Yorkshire oo meesha iminka ciidamada loo diray ah? haddaad iminka eegto Manchester iyo Sheffield wadooyinkan loo maro horta wadooyinkii waa la dhimay speedkii iyo xawaarihii lagu soconayay oo warninkaasi wuu jiraa oo meeshii dee lagaga socon jiray 70 waxaa laleeyahay waa in aad iyo aad loo dhimay oo arrin soo baxday iyaduna. dee wadooyinkuna dee barafkan iyo roobabkan iyo khatartu way jirtaa. Manchesterna roobabku sidaa haddii ay Sheffield ba uga da'ayaanba iyadana uga da'een. markeeda horena way ka roob badan tahay Manchester Sheffield oo haddaad Manchester gasho roobku waa iska ina daanweyne. marka runtii waxa weeyaan aad iyo aad bay maaragtay taxadarkaasi u jiraa. dadka Soomaaliyeed meelay joogaanbana waa ku baraarugsan yihiin inkasta oo aan dee sidii la rabay aanay dee ula falgelayn oo waxba aanay gacanta ugu jirin marka dee dhinaca kale laga eego oo de iyagu ay dawlad kale ku hoos nool yihiin. yaasiin faarax jees oo ah wariye madax bannaan degan magaalada Sheffield ee cariga Britain ayuu kaasi ahaa oo kol dhow khadka telefoonka ugu warramayay waryahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.